وهاجاك dhegeystayaal barnaamijkii hore aad dhegeysateen waxa inoo joogay waqtigii la dilay ninkii la oran jiray Kofil iyo gabaygii Said Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhii ka sii wadayno imakan bal waxaynu eegaynaa mabdii sayidku lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waa tahay waxaan mar kale hadaba idinku celinayaa aw jaamac Umar Ciise oo arintaasi bal inoo ifiya marka balgabayadii uu dadka hadda markaas la hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayay maaragtay muxuu ahaayay in dawladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraargu kula hadlayay culamada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka walan idma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiiseen baa dacarta igu kiciyey waa markay culamadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu wuxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka walan idma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiseen baa dacarta igu kiciyeye shan haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyena dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducuu heli dibna deeqa eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeel caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawa ugu daranteen wanka doosha weyniyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaalow ma diideen jihaadka ma u dareertaan daran iyo seef degta maa ku qaadaan darmaal haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiilka diirka qaadka biixda ma ugu dadabtaan doobdhiga xamaalka dakaka maa ka goysaan idinkaa dalkabalee dawlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u daliishanayaa inuu dawladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkabalee dawlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdiisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii wuu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqleh iyo ina nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo ii nasaba jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawe ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska eryaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanaayeen maxayse doodood ahayd aw jaamac Umar Ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey wadaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka 4 gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal 4 gabay kan ugu horeeya berbera aan ugu horeysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa untay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoommuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura'e allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darani allahayow adaan ee xoqoon eedna aan gelini allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal lihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umurihii nin dilay ubad jaqsiinaayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha liita allahayow nimaan odayda iyo
habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'minku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecayn allahayow ibliiska u eg oo aannu garan weynay allahayow mid oogada jidhka aad insiga mooddo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoonlaawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalayu ka ashkatoonaayo allahayow ha nagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoommaannu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahay waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabay u mariyey sayidkaa u yeedhay baa la yidhi wuxuu yidhi iimow xoolaan ku siinayaado waa nin aad loo tixgeliya ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeedhin jiray yarow ahaantiiye uma yuumo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yeris nin jiifaaye cusba nebi yacquub bacdalya'si buu yaa safaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii ayuube taniyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhannibaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaaddoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diidayoo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeta inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday wuxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur guray tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii lallaayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajiniye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkii nin caddaaday oo caalimah oo madaxu cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa carruusee warmaha ku cadcaddoo dila rabbi iyo nibaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo haadda la cunsiiyo rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weyddiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidno ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele mooddo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nibaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weyddiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu gaba wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran calidhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii
ninkii diirka uga qaada daw kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaarraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dhammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daallinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey calidhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodaayey u marinayey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waacay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddii wax la yidhi rag colooday cay iyo afxuma waa camaladoodii waa hagaagaha barnaamijkaasi taariikhda halkaasi ayaannu toddobaadka dambana idinka sii wadi doonaa